Xanaaqa ama caradu waa ka soo horjeedka farxadda iyo dhoolla caddeynta. Wax ka baro noocyada xanaaqa ama carada dadka. Daawade adiguna halkan ka ogow nooca aad tahay. Waa xaqiiq in qof walba xanaaqo wuxuu doonaba ha ka xanaaqi. Waana dabci xikmad xambaarsan oo Rabbi ku abuuray insaanka. Xanaaquna waa ka soo horjeedka farxadda iyo dhoolla caddeynta. Haddaba ayada oo dadku kala dabeecad duwan yihiin, kalena dulqaad durugsan yihiin, ayaa waxaa jira xarakaad sabab u noqda in qofku xanaaqo. Xanaaqa bini'aadamka ayaana loo kala qaaday 4 nooc, kuwaasoo kala cabiraya shakhsiyadda iyo dabeecadda qof walba uu leeyahay marka uu xanaaqo. Nooca koowaad, qof si degdeg ah ku xanaaqa laakiin raaligelintiisu fududahay. Qofka nooca ahi waa mid dareenkiisu fudud yahay. Waxaa macquul ah in uu hal eray ka xanaaqo, balse daqiiqad kadib uu raali ka noqdo, isaga oo maanta eraygii uu ka xanaaqay beri caadi u arka. Qofka sidaan ahi inta badan dareenkiisu hadba sida uu yahay ayuu ku xiran yahay. Waa qof xanaaq fudud, balse niyadiisa aan ku dheeraan xanaaqa, si sahlan ayaana loo raaligelin karaa. Nooca labaad, qof aan inta badan xanaaqin laakiin raaligelintiisu adag tahay. Tani waa dabeecad dadka qaarkiis leeyihiin. Waxaad arkaysaa qof si walba oo aad ula kaftanto ama aad wax uga sheegto aan ka xanaaqin, maadaama uu sheeko yaqaan iyo dulqaad badane intaba yahay. Laakiin qofkani waxa uu musiibo noqdaa marka uu ka xanaaqo, iyada oo ay macquul tahay in aanu muddo toddobaad ah kula hadlin amaba aanu weligii salaanta kaa qaadin. Nooca saddexaad, qof si degdeg ah ku xanaaqa haddana raaligelintiisu adag tahay. Qofka nooca ahi waa kan ugu xun bini'aadamka dhanka dhaqanka iyo nolol wadaagga. Waxa uu si sahal ah uga xanaaqaa kelmad kasta oo xumaato u arko. Haddana waxaaba ka sii daran in raaligelintiisu adag tahay oo ay waqti iyo sashabasho badan u baahan tahay. Shakhsiga dabeecadan leh inta badan nolosha saaxiibo badan kuma yeesho, guulo muhiim ahna ma gaaro dabeecadiisa qalafsan awgeed. Nooca afaraad, qof aan inta badan xanaaqin haddana si fudud loo raaligelin karo. Qofka dabcigan leh dadku waxay ku tilmaamaan dahab aan inta badan la helin, waana qofka ugu fiican ee nolol iyo sheeko la wadaagi karo. Sidoo kale qofkan inaad isfahantaan aad bay u fududahay. Inta aad la joogto ama saaxiib la tahayna marnaba welwel ma dareentid, maxaa yeelay inta badan maba ka xanaaqo si walba oo aad u xumeyso ama ugu xadgudubto. Waxaase intaasi u sii dheer in uu si fudud kuu cafiyo marka aad ku talax tagto ama aad ku xadgudubto. Inta badan qofka noocan ah dadku waxay ula baxaan magacyo kala duwan sida miskiin, caanamadaadshe iyo wixii la mid ah. Ugu dambeyn, waa muhiim inaad baratid nooca xanaaqaadu uu yahay, si dadka aad la dhaqanto ama nolol la wadaagto ay u bartaan una fududaato in aad isfahantaan. Haddaba daawade, adigu nooca aad tahay qaybta commentiga inoogu soo qor. Mahadsanid.